أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. يبدو كالنور المنبثق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. نروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق، كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المختلق. نروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق، كي نبصر أجيالا تسمو. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi subxaanaه wa tacaala walaalada diyaariya kulankan iyo markaska reer abu hurayra maamul iyo shacabkiiba. marka labaad, haddii aan deriskan bilaabo, deriska lay dhiibay waxaa la idhahaa miftaax asacaada azawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. asal waxaa islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. laakiin waxaan isku dayeynaa bal bacd alashyaa inaan tilmaamno. waxaynu tilmaami karnaa ziwaajku ama guurku waa sharika bayna zawjayn, ama waa nolol ay wadaagayaan laba qof oo markii hore ajanabi kala ahaa, dabeetana isaga raalli noqda inay nolosha isku darsadaan. waxay yidhaahdaan shirkadaasi waxaa asal u ah ra'samaalkeeda koowaad bay yidhahdaan huwa alxub. shirkadaasi ra'samaalka keliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fi suurati alacraaf: huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. ama fi suurati الruum: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى، إلهي آيات كيس ووين اللغوغرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن ورقة ama
aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu u yeelay lamaane. lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa la yidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. asalka guriga markaa waxaa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. ilaahayna wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiinnana waxa alla yeelay subxaana wa tacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. kalgacal iyo naxariis. waxaynu markaa isku dayeynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya. ilaa xad ilaahay ku tilmaamaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun, hubaa u tihiin idinku haweenkaan qabtaan, haweenaydaaduna hubay kuu tahay, dhar. dharku qofka bini aadamkaahi 3 shay buu u qaataa. awalan wuxuu u qaataa caadiyaat alxayaa inuu iskaga celiyo, kulayl qabow waxa jira inuu iskaga rabo. ثانيا wuxuu u qaataa lisatri cawrati, cawradiisa inuu ku asturto. ثالثا wuxuu u qaataa liziina walitazayun, inuu isqurxiyo. ninka iyo gabadhu intaba way isu yihiin, 3 shayba ninka iyo gabadhu way isu yihiin. waa meel uu qofku hadduu nin iyo hadduu gabadh yahayba uu ku dego oo ku xasilo. waa meel uu cawradiisa iyo sirtiisa iyo waxa u qarsoon oo dhan uu ku kaydsado oo u dhigto. waa meel uu quruxdiisa ku muujiyo. idan qofku wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan, ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii hayaa. saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin, dhar inay isu yihiin. gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin. gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay, ama in lagu xasilayo, ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taallo, ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara. waxaynu leenahay dhowr shay baa jira. dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi, laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul, qaabka wada dhaqanka. qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay, waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa. jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco. sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo. kalgacalkuna waa wax la beero. sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii tusbix fiiha sacaadatu shaksin aakhar daruuriyatan lak. waa xaalad bay leeyihin qof kale liibaantii adiga ay daruuri kuu noqoto, aad ku farxdo oo qofkan aad kalgacalka u haysee jeceshahay waxaad la jeceshahay wanaag oo dhan. waa xaala aad qof kale rabto liibaantiisu adiga ay ku farax gelinayso. waxaan rabaa markaa 2 dhan inaan ka sawiro. dhan inaan ka sawiro ninka, dhan kale inaan ka sawiro gabadha. marka aan taa tilmaamayo, awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhexeeya inta badan dadku marka jacayl iyo kalgacal iyo muxibo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego, dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal, quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-addiisa. nacam, quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin, sideeday fitriyan ayay maxbuub yihiin. waayo ilaahayba qur-aanka markuu inoo mana sheeganayo
ee la sheegay xoolo in layna siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa la yidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqanka ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaali lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadigee sare ee muuqda waxyaabaha ugu horeeya ee lumaabuu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da-baa iska socota saa daraaddeed waa tarahulaat baaba waa muuqaalkii hore isbeddel baa markiiba ku yimaada laakiin waxaa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahin waxa weye ka asala jamaal alafcaal sida awgeed reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhahdeen ee aanu damin si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhee caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa un inta mar laysu dhigo la dhergo saa la ahaado walidaalika waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabhaabanaysa ag joogta walidaalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo mithaal aan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda qariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo laakiin waxa aan tilmaamayo o dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo مثلا النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا حديث صحيحة هديات كيساسية أو حيث هدية واسجعلها إنسان يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحيارها بيره دتكو إن الرال إسكن نقضان وحريد في عن وكالقعل ودحمره وحكم إذا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كيالي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا جنة قال لي ما يسامبوا النبي يقول إلا يا إيمان لا يدين كهل موياني إيمان لا يدين كهل ما يا إلا يا محي أشجعلاتان موياني هذا النبي يقول حط المامي كالقعل كاسي مسلمين تدحدوا ودقليا سيدوا أكوري لها أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما يدين تصيابوا النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه أعمال يا أفعال هذا سميسان أشجعلان إنسان وحو النبي يقول أفشوا السلام بينكم salaanta badiya salaanta waa kalaamka tayyibkii halku ka bilaabmo qofka walaalka ay markaa soo horbaxo assalaamu calaykum inaad ku tidhaahdo waad u ducaynaysaa qofka intuu kuu yimi assalaamu calaykum macnaheedu waxa weeyaan rabbi ha ku dhowro qofka intuu kaa soo horbaxay kugu bilaabaya hadalka ilaahay baan ka baryayaa inuu ku ilaaliyo waa qof kalgacal uu kuu wado hadduu kugu celceliyo markaas si kastoo aad u cadhaysnayd hadduu imika assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow markaas ka soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo laba saddex jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa wacalaykum assalaam baad leedahay yani waa qof muslim oo markuu kaa soo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka inuu xubbigu wax la beeri kara yahay
dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay bale quraanka ilaahay wuxuu leeyahay idfac billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم با إلهي marka xuma lagu sameeyo wanaag kaga jawaab ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maxaa dhacaya فإذا الذي بينك وبينه عداوة كي colaad idin dhaxaysay wuxuu noqonayaa buu Ilaahay leeyahay كأنه ولي حميم ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya qofkii dhibta ku geystay ee kaafilaya inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aad على الأقل فإن عاقبتم بمثل inuu sugayay intii uu ku geystay ilaa على الأقل inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofka agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isagu wax ku yidhaahdee uu yidhaha wararkaasi abaal buu igu leeyahay baraan waxa ku sameeyo haddana wanaaggaasuu ii galay sida daraaddeed maxaan masaa'ilkan u tilmaamaya waxa weeyaan xubbiga fitriga ee hore waa laga yaabaa inan iyo inan kastoo isguursanaya markay isguursaynin nin kalgacal fitriya dhex mara waa suurtagal laakiin inuu kaasi joogto ahaado oo gurigan isjacaylkaasi uu ku noolaado oo hadday dadku gaboobaan uu la gaboobo oo sidii jacaylku u jooga wuxuu u baahan yahay afcaal iyo dhaqan abuuraya inuu kalgacalkaasi joogo waa taa masalada u baahan markaasi in wax la iska weydiiyo oo la tilmaamo waa taa masalada aan isku dayaya markaa wixii alla ka fudaydiyo subxaanahu wa tacaala inaan soo naqliyo ama soo guuriyo idan kalgacalka qoyska iyo gurigu waa matlab ama waa arrin u baahan sanaaca mushtarika bayna zawjayn waa shay u baahan ninka iyo gabadhuba inay wada beeraan waxaan isku dayayaa markaa kalimaad alxub والعاطفة الجياشة أي كم موقته إن انكسر نقليه من كلام علماء سلف قرى إن انكسر نقليه علماء دي هراء مسلمين تا إيه وحيابا يساتن كيدادين أولا وهي علماء دو يدادان كالقعلكو كو أنين إيه قبردو خلقانو قبردو هوينيدو إنين كيدا شعلاته وجعل دبا جعلاتا ومن الدين وانا الصفة ننكنا وجعلي هدو قبردي سكال قعل كو هايستو إيا جعيل وكدريميو ووحو ننكو جعلي هاي تا وحا الدليلة إلهي القرآن كمركو السفين يي دمرك جنة جوغا وأي كمديهين دمرك مؤمنات كاهاي الدنيا دا إيمان كل انت أهلو جنان نغضا كمدا dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeynayay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inay yihiin kuwa raggooda jecel inna ansha'nahunna inshaa'an fajacalnahunna abkaaran curuban atraaba baa ilaahay yidhi waxa weeyaan baa ilaahay yidhi curuban haweenka jannadu gabadha muslimadii inay ahlu jannaa la dhaqan noqotaa waa waxa diintu ku yeedhayso يعني أهل الجنة ودقا في عن جنة وحي الله ودقا وناكسن سدرادات قبضة مسلمات الدنيا تشوكتانا إن الدقا كانوا كلايا لتا وشيء مطلوب له بهاي ولولا هدي آنو أهين ننكو متكفر حيا إني هوينتي سوشي عشي هدانو أهين إلهي وقماش يغن نمعادا وشنة كوهلا يينيت يعني ميال لوران لها جنة نمعوين كاد نمعوين هولي سوى حكمي ده لولا أنا هين من فطرتي إنه كفر حيو كبرار يو كوكلا بدن يو هداي هوانتي سكم مغطرقا أما هذا أما صعد أما موقال أما وح سوتشي تو موتشينا يينا يتعشى هداي كم مغطى سيدا وجد بل كتب التفسير عن تلمامو كلمة عربا أو عربا لبدا قراءة كادون تباخري واسكمي ده waxay dhahdaan mufasiriintu shan qowl bay ka leeyihiin buu leeyahay ibn al-qayyim fi zaad al-masir kiisa qowlka koowaad ay culimadu ku fasireen waxa kamid ah al-urub waxa weeyaan buu leeyahay annahunna al-mutahabbibat ila azwajihinna wasida wa awfi ibn abbas ka warinayo waana qowlka mujahid laga soo naqlinayo sa'id ibn jubayr ibn qutayba imam az-zajjaj culamada soo dhabay ku tagtay
وحليه هي عروبا تهوينك جنة لغوشيغي وحوية أنهن المتحببات إلى أزواجهن وشرح دون وقوة استعليسينية رقودة قولك اللبات وحو أرنا يا عرب كيكو فصيرينا أنهن العواشق وقوة إيجا عشق وهيبا كيه رمحولها وقوة استعليسينية من كده كانوا حليه يضا لفتيده أي عشق وهيا وانا سيدا ابن عباس علي بن ابي طلحه وكورين ايوه وانا قولك وكنت جاي حسن يا قتاده يا مقاتل يا مبرد يا مجاهد لفتي سو قول بعد ولي قولك صدح هذا عربا وحي كنت المامان الحسنه التبعل وقبض الصدف في عنه لدق انت نين كده اسنا ابو صالح يا ابن عباس كورين يا ابن عباس صدح قول ولا كورين يا مركا وانا قولك كنت جاي ابو عبيده قولك أفراد مسألة ترى كنت الماما وحويان يعني وعكرمة لقوريو الغنجات غنجة جارية غنجة مركا ليها غنجكو والتكسر وتدلل ويسشبين وحيد هذا وحكم ده وصائلك حبك سكلا مركا لوت الماما ابن زيد قول كيسا قدام بيوح لي الحسنة الكلام أحد المفسرين مثلا دانا قواشي سسوغوريو ابن عاشور في تفسيره وحورنا يا عرب وجمع عروب بفتح العين ويقال عربة بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوح لي وكلمة دمر كوكارة ولغو صفاية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بوري لكن وحان شيغي يا بوري وحكل مية هوين كان جنة صفة لغو شيغي عروب قبرنا لغو صفين يا معنى هدو حويان بوري المرأة المتحببة إلى الرجل وقبرنا ننك يدا استعلي سينيسا أو التي لها كيفية المتحببة بوري أما وقبرنا dhaqankeedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wain lam taqsid التحبب buu leeyahy oo muxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy بأن تكثر الضحك بمرأى الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه waxaa ku fasiraya sheekha uu leeyahay carruubka waxa la yiraahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kale jeclaado ha noqoto buu leeyahay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadal kala jajabiyo ama wax tagazul tilmaamay yani wuxuu tilmaamaya un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yiri waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraanta tay quraanku u diiday yani mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajnabiga inay hadalka jajabiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaas oo dhimo xaaraan quraankuna si cad ay nusuustu tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nabigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qoraya waxay yidhahdeen oo maga inta shahawadeeda gudana ajarna loo qoro haddaa la tagtaan buu nabigu yidhi maxay xaaraanta haddaa lagtaan intaa miyaan dambi laydin qoreen walidalik ay ibnu caashur wuxuu leeyahay waa sida ilaahay baa leeyahay falaa takhdacna bilqawli fayatmaca alladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jejebinina oo yuu idin dalbin kii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jejebisaa si uu u dalbo kii xalaasha u ahaa waxay mamnuuc tahay maxay khaarija ziwaaj inay warka kan la timaado ama se ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna cagaa iyay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato hadday gurigeeda joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jajabin kartaba ha jajabiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto
يعني waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fi baytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal acmaasha ay tilmaamayaan ikrima wuxuu kaloo ku tilmaamaya alcaruub ay almaliqa buu leeyahay maliqu waa kelmaddan idhaa hebel waa mutamalliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jejebiyo oo qofka isu dhul dhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhaahdeen ama markay joogta bay leeyihiin beytka ninka iyo gabadhiisa haweenaydu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahay hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhaahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay idhaahdaan غalimaduna waa hayajaanu shahwat الnikaax min almar'a wاlrajul labadaba soo dhaaf imaam الbukhaari marka uu tafsiirayo fi xadiid الbukhaari fi tafsiir الcariba ay alghanij buu ku tilmaamay والغنج في الجارية واحدة تكسر وتدلل وإسجبين إيا إسدلدي إمام الغزالي في إحيائه وحليه هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به وبه تتم اللذة سيدا وقاد وحلينا هواني دا مسلم كا قرية كان يسوء للسنان كارو وحوبة هني قرية إنه أكادا قرية جنة كتشري gurigu inuu ekaado maxay guriga jannada ka jiray guriga jannada ka jiray haweenta joogta hadii la yiri waa urubana traba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xural caynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaan leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo ma aha الحياة قيب كميدي ومذموم قيب كميدينا وممدوح وحا شرعي بنيين لقا حشودا ومذموم بيلي كما جرتو محبوباتك وحا لا جعليه كما جرتو بل القرآن كماركو تلمام يرقى إياه وينكا وحا لا يدي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ومن أقوال المفسرين في الرفث waxay yidhahdaan aslu luga rafadka waxaa lagu tilmaamaa qofka oo ku dhawaaqa ifsaax bima yukna canhu aw qowl lfuxshi bay yidhahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yidhaahdo guriga se waa laysu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sida daraaddeed kelimatu rafath ayay culimmadu leeyihin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqadamaadkiisa looga jeedo إذن ماشة وحان تلمامي وحويان الأستاذة مريم الناجم باوحي لهذا هوانته وكتلة متأججة من العواطف في ترسيدة با وكوس كالقعلة وكرية بيتري لكن قفكو حكي ما دابا لهذا درينك حشوتك اللي سياق الضن أي كلا قرن ويدي بولاده وحي أباهنين لقا حشوده iyo waxaan u baahnay in laga xishoodo ama si kale hadaan u tilmaamo bay leedahay waxa loo qaatay in qofka waqaarkiisa iyo simadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo deganaantiisa ay wax u dhibayso cilaaqada zawjiga waxa ku salaysan ee baabkani waxba uma dhimaan bal waxay dhaadaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhaahdo meel bay fadhiisatay way wardiday qolaa waxay ku yidhaahdeen ma bacda hada min hada labadana waddo kala foga inaad cusbarato oo mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay lilaahi minii jaanibun laa udayicuhu walilahwi minii walkhalaacatu jaanibu waxay tidhi ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb bay igu leedahay iyana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin tanna waa baab kale oo ilaahay baneeyey markay gurigayga joogo kanina waxa weeyaan bay leedahay wardigii aan u haynayey oo aan barayay ولذلك يا ابن عساكر بقى وحصان أغليا بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري
وتابعي أبو موسى الأشعري بقى ووجيس صحابي اللي أورن شري صحابة النبي كتر سنة إسنا أمير بصرة أيها هان شري أيا قلا جلسدي سوى فرد دبو حكيري ما العروض من النساء والقرآن كوا كان عروبا ترابا شاقيه هوانك واتي تعروبك هاي قال فماجو dadkii waa buuqbuuqeen markii ninkii ugu weynaabee amiirka magaaladan uu kelmadda tan weydiiyey waa la buuqbuuqay dabeetana waxaa soo galay baa la yidhi isxaaq ibnu cabdallah ibnu alxaarith isxaaq ibnu cabdallah ibnu alxaarith ibnu nofal ibnu alxaarith ibnu cabdilmutalib ibnu alhishaam ayaa soo galay in haashimiya nabi maxamed ay isku abtirsan yihiin calayhi salaatu wasalaam oo isna culamadii wakhtigaa joogtaya dadkii markuu ninkan uu soo galay buu wuxuu yidhi qad jaakum man yukhbirukum fasaluuh war hadduu yimaadaba nin ka warramaya ee isaga weydiiya buu ku yidhi haddaa idinku ka warwareegteen oo sheegi weydeen kan aalubeytkaabaa ka warramaya ee weydiiya buu ku yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu yidhi alkhafira almutabadila lizawjiha waa ta xishoodka badan markay meesha kala joogto ninkeeda markay joogtana waa ta u furfurana u mardhigata isu dhuldhigta dabeetana gabay buu tiriyey uu leeyahay waa ta la yidhi yucribna cinda bucuulihina idaa khalow waidaa hum kharajuu fahuna khifaaru markay raggooda la joogaanna waa curubka kuwa lagu tilmaamay xagga debedda markay u baxaanna waa khifaar yacni alxayaa shadiid baa la yidhaha khufriga waa kuwo aada u xishood badan sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa gurigu si uu u dhisnaado oo guri saciida uu u noqdo waa inuu noqdaa guri kalgacalkiisu uu joogto yahay kama warramayno cisharadii ahayd bilmacruuf in lagu dhaqmo iyo baabkaasi maaha baabkaynu tilmaamayna si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحويا الودود واطني كذا جعل كبرنا كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدوني دشوقة جنة قلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي الودود العؤود تجعلني كده ووحدة ليسة وعؤودة يعني عائدة بالخير ونفع إلى زوجها خير يوانا أقول لك كده كلنا نقنيسة تحدي أي واحد انتو أما يضل الريبه انت إنك هذا قعنت قبطت هذا والله أنا وحبر من إن لا ترالي نقطة موياني هدي حتى يدا الله دبابو نبغى له يا مسه يدا واحد بتوع مركز تبع أوتاجن إنك هذا رالي جلسه ولذلك يا لورا دويل قبل الله يدعى مرايكن كلبو كنا يوبحيان ترجمة ديسا الزوجة المستسلمة وحيت المام يسا way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii isdileen oo iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambaan waxaan fakiray bay leedahay oo raadiyay maxaan anigu ninkeygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina ay wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidaalك baa waxay qortay book ay dhadaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay almar'a almustaslima istaslimi li zawjik bay buuga fikradiisa dhamaynta ninku waa libaax bay leedahay hadii aad isku soo taagtana wuu ku cuni haddaad u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sida daraadeed jajabne isdhiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinayaa haddaad adigu isdhiibto wax kasta waa lagu siinayaa idan qofka muslimka ama reerka muslimka ah
وارير كالقعل كاسي ودحي waxaa laga yaabaa inaan waxoogaa tilmaamay caruubnimadii iyo waduudnimadii bal dhanka kale aan tilmaamo waliba marka aan tilmaamay waxa laga yaabaa kutubtan baababkan ka warantay dadka kale qoraan in afkaar khaliya un la qoro aan tusaalayaal wadan yani cid ma jiro standard oo marka afkaarta la sharxo dabeetana standard lagu qiimeeyo male misaal ma jiro tusaale ma jiro لكن waxa laga yaabaa in culamaa suluuk oo culamaa nafs oo sociology oo waxa la mid ah wax la qoro un afkaar la tilmaamayo guriga ku dhisnaan kara kan tan aan ka daayay qaybta ninkaaba haddaan taa dumarkii ahlu janna u soo qaatay tan nabi maxamed soo qabano salawaatullaahi wa salaamu alayhi iyo dhaqankii ka muuqday waxa aan rabaa maadaama aan idhi xubbiga iyo kalgacalka ninkiiyo gabadha u dhaxeeya maalmaha hore ee la isjecel yahay la iskursado qura ma habeen leen waa wax la beeri karo oo joogta noqon kara oo gurigu kalgacalkaasi uu ku noolaan karo ilaahay inta Allah uu qoro laakiin beeristani waxay u baahan tahay labada qofba inay wada beeraan waxay u baahan tahay haweeneydu inay beerto oo ay ku beerto wixii sharcigu uu baneeyay waxay kaloo u baahanay inaynu aragno ninka iyo jaanibka cawaatiftiisa tan uu ka tilmaamayo nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayh axaadiista ka soo aroortay tirada badan leh nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayh sifaadka nusuusta kaga soo arooray waa sifaad aad u cajab badan وصفات دن تواضعي سموجينيا isagoo nabi oo rasuul oo ilaahay ummadaba ku ka doortay oo aadam laga soo bilaabay ilaa iyo dunida qofka ugu dambeeya beersankii ugu koreeyay ugu sharaf badnaay ilaahay ugu jeclaay xagga alle u xigaya yani waxaan oran karnaa waa aqla insaan koonka lagu dul arko laakiin guriga dhaqanka iyo qaabku u dhaqmaya jacaylkan uu beerayay nabiga cayn ku ahaa salawaatullaahi wa salaamu alayh waa kala nooc inaad ka waranto dabadda marka uu ninku joogo ama gabadhu markay joogto bulshada siday ula dhaqmayaan waa si gaar ah gabadhu dabadda markay joogto xishood iyo hadal fiican iyo dhowrsanaan ayaa laga rabaa iyo xijaabkeedii iyo waxeeda sidato ninku dabadda markuu joogo waa nin wax maamulaya odaya waayeela wax garada aqoonyahana wax kastaba bal saalixiin iyo awliye nabiye rasuul leh laakiin guriga markuu joogo nabigu iyo rasuulku iyo dadkan isay u dhaqmayeen idan xayaatil bayt way ka gadisantay dabada xayaato badan oo taala sadaradeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabo xadiiskii saxiix muslim ku yaala kuntu ashrab فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في intaan weel wax ku cabo nabiga ayaan u dhiibay leedahay dabeetana markaan u dhiibay wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray halkii dhereerkeedu ku yaalo ka daba cabaa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayh yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaan nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayh afka ka saaray wa atacarraqu alcaraq fayadع فاه على موضع في waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan fahantayo halka aan ka goostay oo intaan fahantaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii fahantaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayh yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayh sidii u dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelka haweentiisii wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saarayay waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayay xadiiskii saxiix muslim ku yaala kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yatakau fi xijri wa ana xayd nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayh dhabtaydu ku jiifsan jiray bay leedahay anigoo xayd leh waxay tilmaamaysaa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayh idaa kaana billayli saara macah xadiiskii bukhaari habeenkii
بيكنيك بانو ودا بيحي جرني بيلا ذي نبي وإسراعي جرني للتنزه والنبي الرسول ولي بقور مشوقة دوري كنت نشرة أورانا أنا وضيبانا هيود اللي يرد راعد إسلام هاي أنا ما دبق كلامها والنبي رسوله ودوري كنت نشرة عليه الصلاة والسلام والله الصعدة هو إنكيسة تيو دايريت قبل دوري تبنشرة الله الصعدة ومدينة هاي شو دوري تبنشرة يا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أو دوري كنت نشرة يا وحي لا ده بيكنيك بانو ودا بيحي جرني بل واحد كجران كرتا نبي صلوات الله وسلامه عليه مقر سنين حتى كالقعلك إنك واحد لقى يا بانكو نصف ماليات بل كده قبل هذا متشعشي يعني غير معقول وحاسي وح أفلس ومريو ويكوين تاي نبي محمد أنت الصحابة دوي ما دم بينها إلهي رسول كيسيو ضدك يا دو تشعشي تعاشبوا يدنبو تصور النبي محمد سأل لو يدي الضد بياض وشعشي أو إذا هذا عاشا مركز سيد هذا الرجال وشهدنا مركز سيد أبيهد أبو بكر بارم شعلها يعني يسقوا النبي والرسول أيوه وحي علماء دولين حتى المصارحة بكلمة الحب ما ها إيدا ينو مصارحة يقرأ إنه إيدا كويد هذا ننسى ما ليدعيت كالدا يهوين تسال لقى ما يابا إنه ولقي واكو شعله كويدي يعني واحد لقى حشود أنا في كصابع كريم أما كوين ولي بس صومالي يعني ومشكلة بكتيبة كان ما من دي بواي أما مال هو سكون عيو أن دي بلوغ سوق هذه كرينين يعني واحد سكاك كان قلت ما دي مشكلة دي وحويان الحياء الجميل وحي شيء جاي حشود كفي عن إيه وحي شرعته بنيسير دقن كأهابا اسكو قلدمي وحي شرعته بنيسير دقن كيبا ينسكو قلدني ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه هو انتيس وتنزه الراعي بل يعني وحن ودم وحن تلمامية وأفعال انتهى بدنه عواطف طاي وحكى بدشو وأفعال موقال كيدو ويريه كوب قال كي كعبت أنا تقاضى كعبت موقال هان ما هي سمين سبال غير إنك سبال جراه لكن واحد نودي واحد كان يوحوا بهاي إن لا بيره oo dhaqamo yaryar oo tirsan oo adiga agtaada aan wax buuran ka ahayn ayaa qofka psychologically haday degaan noloshiisa wax badan ka bedela idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxa kale oo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yiraahdo reerkaygii ayuu afka kale warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray u fiirso haweentiisu jeclaa saaxiibadeedii ay la saaxiibada ahayd ayuu nabigu hadiyad u diray hadiyadan wuxuu ku sii raali gelinayaa maxay haweentiisii u jeclaa bal iyadoo dhimatay ayuu diray عائشة واتي حديث كصحيحة كنت الماميسي إن صحيح مسلم كيالي مركا نيفلا قلب النبي وحيد هذا خديجة أصحابته دي إن هيلبك وحقدر فاتي عائشة لا يدولي قبركم هناسين إن هوين تارد ما توي أنا نسيسو قارن سيدا نقول هناسين بيلا ده سيدو نبي شعيل كده وموجي سنة يعني وقرصنين إنه شعيل هي أيو موجي سنة بل أصحابته دي يدتك أي كحد نيت إنه شعيل هي نبي صلوات الله وسلامه عليه وحو رقم كيس ينتصينا إياه كلمة في عنه وحا ترته كلمة في عنه كلمة في عنه نبي هوينتي سو أماني أمانته وح فترة بين آدم كسكتش عش أو وقفكو يربون بون سما دي وحلا يرى شيك شيكو هوين هديسو النبي كويري إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام عاشا فضل جيدو
وحكوية هيبو نبي يري صلوات الله وسلامه عليه marka loo eego dumarka kale sida thariidku kay thariidku waa kimis marq iyo hilib lagu googooyay oo waqtigoodii ahaa yaani cunada ugu fiican ee mala madiiniga gaarkeeda taalay oo marka tabaqada de uu ugu sareyn kartaa wixii u fiicnayd ay cunaysay thariidku halku ka joogo dumar ayuu ka jooga waxa meesha ka muuqda wuxuu yahay ilaa xad luqadatana amaanta iyo mashaacirta dadku markay isweydaarsanayaan xataa haweenaydiisa amaanta shucuurka waan ku jecelaya baabkaasi ku saabsiisan warkeedu xataa been maaha oo been ma sheegaya oran maysid walidaalka ba xadiiska nabiga salawaatu allah wa salaamu alayhi saxiix abi daawud ka ku sugan wuxuu nabigu dhowrkii shay oo yiri been maaha waxa kamid ah wal rajul yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha labadoodu sheekada isoo wanaagsanayaan iyo mashaacirtaasi المبالغه في حديث المشاعر بيدهدان كذبك كما جرتو بينت كما جرتو وحكم موقته نبي صلوات الله وسلامه عليه الى حد انت وحتى هوايات كذا وأقلا qofku waxa laga yaabaa nooc min alhiwaaya wax uu jecel yahay inuu iska jirto caasho inaan yaro dhowriyo 10 jiro dhalinyaro ah waxay lahayd bahala yar yar oo ay ku cayaarto habla yar yar iyo farda iyo waxbay samaysatay ay ku cayaarto iyada iyo dhalinyaro kale oo u yimaada dabeetana markay dhalinyarada kale hablaha kale la jooga markuu nabigu soo galaa la is ururiyaa meel baa la isku qariyaa Aisha markay u tagtay nabigu bahalada yar intuu qaadabo hoosta uga dhiibayay si ay halkooda ugu cayaaraan يعني حتى إنه قالوا هو بيجي يري عيارته يري يقول عيارسه إنه وضوضته وهي ماشية تكو عيارته حلنا النبي صلوات الله والسلام عليه وحكم موقته هذه الكلمات مركا إنه تلمامينه هذا الكنأة إنه أمانة أيه أما تشعيل كيس أو موجسنا أيه أما هوايات كذا وحقوق قلان أيه ama uu guriga oo shaqooyinka qaar kood gargaarayo ama weelka halkii wax kaga cabtay wax kaga cabayo kullu hadi wa lughati al-mashaa'ir wa lugha dareen ka tarjuma yani qofka bini aadamka socodkiisa iyo hadalkiisa iyo muuqaalkiisa iyo daymadiisu waa lugha qofka kalena uu fahmo walidaalika ba أحد العلماء بانركي الدكتور أبو كدياري لغة التواصل في القرآن وحيابها كلام لقى ورمي لكن وحك له يعني بني آدم كو هذا القرآن ما هو حكوه هذا حديده ولذلك مركي قرية الدبادة اللي قد شوقه وحلا ممنوعي هوانتو إن يستحش ماله وصع طبعا لأمري وحلا لي وحي سيتشبيسا qofka kale ishiisa soo jeedanaya cagaan dhulka lagu garaaciyo waxa soo dhan baa la muuqdo waayo waa luqa isjabintani waa luqo kabahan dhaadheer la qaadanaya waa luqo kabtan dheeri marna way sanqadhaa dhaw kabnino sanqadhaysa waligaa miyaad aragtay maxaa kabaa dumarka sanqadha loogu yeelay waa gabadh kule halkaan maraya ay soo eeg nin kab dheer oo dhawle arki maysid waligaa waa falsafa yani maxay yiraahdaan style engineers ku waxaan ay dajiyeen weeyaan qolada fashion ka samaysa kabtan dumarku inay maxaa loo dheereeyay waa litamayul qabdulka ku naban hadii la siiyo iska digdigleynaysa caadi u soconaysa laakiin inay ruuxantaa la rabaa in jirkeedu dhaqdhaqaaqo tamayul u dhaco dabeetana kab dheero wala waxa soo dhamay dabada waa ku mamnuuc waayo waa luqati tawaasul bay kamatay waa afka lagu wada xidhiidho waa luqa kamida luqadka bini aadamku uu fahmi karo ee ku wada xidhiidhi karo هذه اللغة بيت كوي فصحنته إذا نك يا جبردو دايما دايمودين بي وحسكو فهمسين كران هذا لا يتريو وكو صلاة ما وكفر حي أما أي رالني ما وكموشي مرا أي حدتي أما وحدي عذر استعمال شيء أري أي كتري قاب يقول هذا ودح سعطي all these kinds ولغة التواصل واللغة إنه لأنه وحي بيري كرتا يعني مشاعرته هذا القرى لقوم موجي حتى هدان وان كجعل يافك كصابحين وين كصابح هذا رقم موجينية أنا تعيشها وين اللغة التواصل أي شرتها وحيابها كانت المامية سيد الدراديد
luqadan markaan ka warramayo waxaan idin waxaan jeclay inuun dadkii guri lahaa ay yihiin dadka ama shariidkan dhegaysanaya ama daawanaya ama jooga waayo luqada tani waa luqo aan la ogolayn khaarij albayt inay u baxdo waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay wuxuu tilmaamay ina min ashari nnaasi cinda allahi manzila yowma alqiyaama maalinta qiyaame dadka ugu shar badan waxaa ka mida buu nebigu yidhi nin isagiyo gabadhiisa warkii dhex maray ee baabkaa ku saabsisnaa ama gabadh iyadiyo ninkeedii warkii dhex maray ee baabkaa ku saabsanaa dabadda kaga sheekaysay idan waa luqo guriga ku kooban waa luqo qafilan oo aan la ogolayn inay albaabkan ka baxdo se daraaddeed markaan luqadan tilmaamayno fi suuq hadday tagto waa fusuuq iyo fujuur fankan aynu tilmaamayno waxay leenahay waa fujuur waayo waa luqadii beytka oo la geeyey suuqa la geeyey weeyaan waa luqadii beytka oo suuqa la geeyey sidaa ogeed ayuu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamayaa warkaas baabkan ku saabsan ee nin iyo gabadhiisa ama xaaskiisii baan u jeedaa nin iyo haweentii uu qabay dhex maray inaanay marnaba bannaanayn in dabadda lagaga warramo oo lagaga sheekeeyo haddii dabadda ay noqoto wax lagaga sheekeynayo inay yihiin min ashari annaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama dadba kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaamo waa luqo marka aynu leenahay waxay u baahantahy in ay ku koobnaato beytka luqadatan cutuurta iyo waxaan la ismamnuuriya caaisha waxay leedahay xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay waxaad moodaa inaa nebi moxamed arkayo oo fii mafraqi ra'si tiibkii iyo wixii uu ismariyey ay kaga yaaliin yani suu nebigu isu qurxin jiray ama uu jeclaa gurigiis iyo meelihiisan markuu joogo in cutuurtiis iyo wixiisa kani inay ka carfaan inuu gurigiisu waxaan leenahay luqadatan iyo warkan aan tilmaamayo o dhami waa war ama waa dhaqan iyo afcaal sheegaya in kalgacal uu jiro nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya innaka lan tunfiqa nafaqatan ilaa ujirta caleyha xata luqma tarfacuhaa ilaa fiyi imra'atik xadiidkii bukhaari wuxuu nebigu yidhi wax kastoo aad baxsato yacni in laga abaalmariyo xataa raashinka intaad qaadda aad haweentaada afka ka geliso xadiisku muxuu tilmaamayaa ninka muslimkii raashinka intuu qaado inuu maxay haweentiisa inuu afka u geliyaa inay tahay wax laguga ajar siinayo luqadan aan sheegaya iyo waxaanan ka warramaya iyo kalgacalkan aan dhisaya waa kalgacal aan janno ku doonayno dheeldheel qudha maaha laba shayba wuu wadayey gurigan dhismihiisa wuu ilaalinayaa dadkan wuu isu soo dhoweynaya dad isu laab furan oo isu qalbi fayo oo isu dhadhow buu ka dhigaya waa mar labaade waa waxaan leenahay ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala oo wax janno lagu helayo sida daraaddeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo caaisha la fadhido ayaa waxaa soo gashay zawda haweentii ugu weynayd haweenku qabay nebigu iyo tii ugu yarayd weeyaan oo laba xaasoo nebigu qabo midna waa tii u weynayd midna waa tii u yarayd labadiiba halkan bay fadhiisteen labadiisa addin buu midba mid saaray addinna caashuu dusha ka saaray addinna sawda buu dusha ka saaray caasha intay kacday bay waxoogaa raashino soo samaysay oo ay sawdo u keentay sawday tidhi cun sawdaa tidhi cuni maayo way ku celcelisay cun may waad cunaysaa cuni maayo bay haddaad cuni weydo wejigaan kaa marinayaa bay tihi nebiguna uu dhex fadhiyaa sawdaa tidhi cuni maayo caasha intay raashinkii badh qaaday ayay sawdo wejiga ka marisay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labadaa din buu markii hore ku hayey sawdina si ay uga goosata buu nebigu cagaa ka soo qaaday labadiisi addin buu ka laabtay sawdina intay qaaday wejiga ka marsay iyaduna yacni waa gurigii nebigaa lagu cayaaraya oo sawdina caaisha cunno wejiga ka saartay caaishana maxay sawda cunno wejiga ka saartay waxaan uga jeedaa waxa ay tilmaamayaan qadaayaadkani in la beero ama se la kobciyo kalgacalka u dhaxeeya ninka iyo haweenka isqaba
saadaraaddeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa safarka markuu tegayo haweenkiisa intuu qori tuuraa buu tii qori tuurkeedu usoo baxuu ka haysan jiray inay safarkana xataa ay la socdaan. luqaadkani waxa ay sheegayaan bayn leenay waxaa laga yaabaa ninka soomaaliyeed inuu caruuro u arko, laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn, waa caruur, halkan inaad ku caruur ahaataa loogu talagalay. sida daraaddeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh caaisha intay dabadda usoo yaro baxeen buu yidhi inaken beratanne waxaashoo inan yara waa la beratamay, markaasay ka dheerays. muddaa la joogay, maalin dambe oo haddana safar la jeegaa buu yidhi caasha maantana waa beratamaynaa inakeen, waa yaro marmarsato may waa beratamaynaa buu yidhi ina dhaqaaji. waa la beratamay, markana caaisho waa yaro cuslaatay oo inantii yarayda fududayd maaha, sidii hore waa iska bedeshay. dabeetana wuu ka dheereeyey nebigu, intuu ka dheereeyey buu weliba yidhi tilka bitilka, taatii u tuur buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. yacni midkeen baa arki kari lahaa isaga iyo haweenaydiisu intay dabaddaa u yaro baxaan inay beratamaan. yacni waxaa laga yaabaa inay suuradda ninka soomaaliga agtiisa taallaa inay tahay ninnimo la-aan ama waxaan yacni dhaqan nin weyn uu ku dhaqmo. waa dhaqan nebi. anigu waxaan ka warramaya, waxaan idin mithaalka kama bixinayo, cid kale tusaale kama bixinayo. waa tusaale nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago, ilaahayba wuxuu abuuray ku ugu jeclaa subxaana wa tacaala makhluuqaadka basharka loo yaqaano. sida daraaddeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhaqamaa ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado. sida awgeed buu caaisha maalinku tiri ilaahay rasuulkiisa haweenka kaloo dhammi dee kunya bay leeyihiin, anna kunyo umu cabdallaahi buu ugu yeedhay sida imaamu axmed xadiidkiisa ku tilmaamaya. bal markuu u yeedhayo wuu tarkhiimin jiray, yaa caa'ish, magacoo badh la gooyo, magacoo inna la tuuro, inna yacni magacii haweentu aan la wada dhammayn, nus yar inta la sheego, inta kalena la iskaga tago. kullu daalik waxa ay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayaa inuu yahay qaab mashaacirta la leedahay. caasho inan yara ayaa xabashidii cayaaraysay, waxay tidhi ma rabtaa buu nebigu ku yidhi qoladan cayaaraysa ina daawato? haabay ku tidhi. dabeetana nebigu wuu isu taago dhinaciisay xagga dambe inta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay. oo maalintii yidha ma ka daashay markuu yidhaahdaba may baan idhaahdaa bay tidhi, anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka aan nebiga ka joogo, cayaarna maan rabine waxaan rabay bay leedahay siduu nebigu igu jajaban yahay ee aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumarka kale inay ogaadaan. waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxi lmarax in ay ku jirto, inay ku jirto inuu nebi moxamed leeyahy khiyaarukum linisaa'ihim. xadiiskii tirmidi ee albaani saxiixa ku tilmaamayay kuwa idinku fiicani waa kuwa dumarkooda ugu fiican. baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay mithaalkii koowaad. waxaan idhi miftaax asacaada azawjiya waa shirkad reerku nin iyo gabadh isku darsadeen, shirkadda ra'sumaalka hantida rasmiga ee haystaan ay ku tijaaraynayaan baynu idhaha waa alxob, waa halku ka bilaabmo. miftaaxa kani mafaatiixdu waa ilka badan bay leedahay. waxay tilmaamaan culamadiio ka mid ah ataqaadi, in isxisaabinta badani taziidu lmasaafaata bucda, in la ysu dulqaato waxyaabo badan isha laga rogo si kalgacalku uu u beernaado. waxaa ka mida bay yidhaahdeen altawaafuq bayna altawaquci waalwaaqic. kullu hada waxay u baahnaayeen amhila min alkitaabi wasunna inaynu tilmaamno, laakiin wakhtigu wuu iska dhammaanaya. waxaan ku soo koobayaa uun guriga muslimka ah waa guri kalgacayl iyo isu uurfayoobaan ku nool, waa guri naxariis iyo mucaamaladii fiicnayd ee nusuusta qur-aanka iyo xadiidku sheegaysa ixsaan iyo iithaar iyo wanaaggaas oo dhan jira.
cadaalad iyo raxmo iyo waxa qur-aanku sheegayo dhan waayo waa meesha la rabo in lagu barbaariyo ubadka bulshada u soo kacaya oo ubadku inuu guriga ka yimaado isagoo yaqaana macna alxub iyo dadka kalgacalka loo haynayo naxariista cadaaladda dhimirsanaanta cafwiga tasaamuxa kullu daalika nusuusta qur-aan ee tirada badan le ay sheegayso ee lagu yidhi dadka kale kula dhaqan waxa awla u ah oo ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaan haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi moxamed wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh gabadh baa u timi dabeetana danay lahayd baa ay ka waraysatay markay dhammaysatay wuxuu ku yidhi nin ma leeday haa bay tidhi saa isku tihiin buu yidhi arrinkiisa saa tahay waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahan yahay uma meel yeela bay leedahay yacni wax kastayna raalli gelayaa baan isku dayaa wuxuu nebigu yidhi ku dadaal isagaa janniya naartaadiiya buu nebigu ku yidhi idan haweenayda ninka waxaa caanka ah atakabur bay dhahdaan iyo alkibriyaa markaa wuxuu isleeyahay armaad haddaad waxan yarar samayso lagu yasa ayaad hoos u soo dhacday waa cuqdatu naqs ragga ku jirta bay dhahdaan